maclimad ayaa ku tiri ardadii wax u dhigaysay dhammaantiin waan idin jeclahay ilaa adiga maahane inta aanan u gudagelin qisada haddii aad ku cusub tahay subscribe dheh si ay kuu soo gaaraan muuqaalada cusub ku soo dhawaada saaxiibayaal maalin maalmaha ka mid ah maclimad wax u dhigaysay fasalka shanaad ayaa waxa ay ku tiri ardadii dhammaantiin waan idin jeclahay iyadoo ka soo reebtay arday lagu magacaabo Tiri dharkiisu uusan nadiif ahayn waxbarashadiisu ay liidato iyadoona ku qiimaysay waxyaabihii ay ka aragtay intii ay wax u dhigaysay lamana ciyaaro carruurta nadaafadiisuna way iska liidataa maalinta waxay go'aansatay maclimadii inay dib ugu laabato oo ay akhriso dhammaan ardayda feelashooda markii ay akhrinaysay faylka Tiri waxa ay la yaabtay waxyaabihii ay ka qoreen macallimiintii hore macallinkii fasalka koobaad waxa uu qoray inuu yahay Tiri arday wanaagsan oo maskax badan waxyaabaha loo dirina si nidaamsan u keena macallinkii fasalka labaad waxa uu qoray inuu yahay Tiri mid ay jecel yihiin ardayda laakiin waxa uu ka murugsan yahay kansarka ku dhacay hooyadiis macallinkii fasalka saddexaad waxa uu qoray Tiri waxa saameyn ku yeeshay dhimashada hooyadiis intii tiraankiis ahna waa uu dadaalay halka macallinkii fasalka afraadna uu qoray Tiri waa arday caajislow ah waxbarashadana aan jeclayn wax saaxiibo ahna ma lahan xiisada dhexdeeda ayuuna ku hurdaa markii ay aragtay waxyaabaha ay ka qoreen macallimiintii hore waa ay ka xishootay waxa uuna mowqifkeedu isbedelay markii la gaaray ciidii dhalashadeeda ardadii oo dhan waxay u keeneen maclimadii hadiyado kala duwan oo aad loo soo qurxiyey laakiin Tiri waxa uu keenay hadiyad la soo dhexgeliyey kiis uu ka soo qaaday qashinka waxa ay furtay maclimadii Thompson hadiyadii uu keenay Tiri ardadii oo dhan waa ay ku qosleen waxayna ahayd hadiyada dhagaxyo yaryar oo la isku xirxiray iyo dhalo baraafun oo uu wax yar ku haray qosolkii ayay joojiyeen ardadii kadib markii ay arkeen inay ku qanacday maclimadii hadiyada si farxad leh ayayna ugu mahad celisay dharkeeda ayayna ku buufisay baraafunkii maalinta ma uusan aadin guriga waxa uu sugayay maclimadii si uu la kulmo markii uu la kulmay waxa uu ku yiri maantay carafta ka soo baxaysa waa midii hooyaday oo kale maclimadii ilin ayaa ka soo daadatay sababtoo ah Tiri waxa uu keenay qaybtii ka hartay baraafunkii ay marsan jirtay hooyadii inta aysan dhiman maalinta laga bilaabo maclimadii waxa ay u yeelatay ihtimaam gooni ah dhamaadkii sanadka waxa uu Tiri noqday arday ugu fiican fasalka waxa uu u qoray waraaq waxa uu ku yiri waxa tahay macallinkii ugu wanaagsanaa ee soo mara waxa ay ku jawaabtay adiga ayaa i baray sida aan ku noqday macallin wanaagsan 13 sano kadib maclimadii waxa soo gaartay waraaqay ku qoran tahay inay ka soo qayb gasho xaflad qalinjabin oo ay dhiganayeen arday ka qalinjabinaysa kulliyadda caafimaadka waxaana gadaal ka raacsanaa waraaqda waxa ku soo qoray wiilkaaga Tiri waxa ay imaatay maclimadii iyadoo soo marsatay baraafunkii uu hadiyada u siiyay haddaba ma garanaysaa qofka uu yahay Tiri Stoddard waa dhakhtarka ugu caansan dunida waana nin kale markaska Stoddard ee lagu daweeyo kansarka